qaar ka mida dadka ka soo goosta al-shabaab waxay dileen madax iyo ciidan halka kuwo kalena ay dib u laabtaan muddo marka ay joogaan kuwo kalena waxay ururiyaan xogta laamaha dowladda iyo tan xubnaha soo goostay ee kale oo ay ku cabsi geliyaan si ay uga hor istaagaan in ay wada shaqayn la sameeyaan dowladda ama inay macluumaad siiyaan sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista ee idaacadda v o a u sheegay khubaro dhinaca amniga ah waana mowduuca barnaamijkaasi uu toddobaadkani ku saabsan yahay waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf al-shabaab waxay si ula kaca maleeshiya ugu soo diraan xarumaha dhaqan celinta dowladda Soomaaliya si ay u bartilmaameedsadaan madaxda dowladda iyo inay u soo ururiyaan xogaha hay'adaha dowladda iyo inay mabda'a al-shabaab dib uga dhaadhiciyaan xubnaha soo goosashadu dhab ka tahay madaxda xeryaha dhaqan celintu waxay ku adkaysanayaan inay xarumahani shaqaynayaan ayna fulinayaan ujeedooyinkii loo aasaasay 15 bishii May ee aynu soo dhaafnay Cabdinuur Macalin Xasan oo ahaa sargaal hore uga tirsanaan jiray al-shabaab waxa uu toogtay askari ka tirsan nabad sugidda magaalada Balad Xaawo oo lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Cabdullaahi Ibraahim waxa uu ka qaatay qorigiisii kadibna waxa uu u tallaabsaday duleedka magaaladaasi oo ay ku sugayeen xubno ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo u galbiyey dhinaca saldhigga weyn ee ay ku leeyihiin halka lagu magacaabo Gadoondhawe ka hor inta uusan geysan dilkaasi waxa uu Cabdinuur isku dayay inuu dilo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka iyo hoggaanka siyaasadda oo ay ka mid ahaayeen taliyaha ciidanka deegaankaas iyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Cabdirashiid Janan dadka kale oo isku dayay inuu dilo waxaa ka mid ahaa Buule Aadan Axmed oo horey gudoomiye ku-xigeen uga soo ahaan jiray magaalada Balad Xaawo aniga aan hadda buu yiri waxaan rabaa meesha degantaan oo waa inaad meesha degantahay oo sheekaysano muxuu ahaa meel xarunta degmada aan deganahay muxuu la imana arki kara gurigeyga iyo agyaala sabtaasaan ku yiri markuu adigu weydiinayo wuxuu rabay adiga iyo generaalka meel uu idin soo maro meel inoo soo maro raadinay markii uu sheegtay inuu ka soo goostay al-shabaab bishii Janaayo ee sanadkan waxaa si weyn u soo dhaweeyay wasiirka amniga Cabdirashiid Janan waana wasiirka iyo maamulka gobolka kuwa ay xilligaasi saarnayd mas'uuliyadda ah inay Cabdinuur ka ilaaliyaan inuu waxyeello gaarsiiyo dadka kale askar ciidan iyo saraakiil kuwa ay doonaan ha ahaadeene Cabdijanan isagu waxa uu taas ku sababeeyay inuu doonayo inuu ninkaasi xorriyad siiyo isla waraysiganna waxa uu ku qirayaa inay ogaayeen halistiisa robotkaas qoray waa u maqalnay laakiin dabcan hadda anaka dilnimo dilin jaanis uu nagu dilana ma uusan heli karin anaka oo meel aan joogno uu ku imaade waa askarigaas uu naga dilay ma waxaad ku aaminteen nin sare oo shabaab u ahaa oo waa laga yaabaa inuu macluumaad bixiyo ma waxaad ku aaminteen qof la yaqaano ahaa oo hel ahaan maaragtay dhow maxaa lagu aaminay ninkaas oo adiga Harun shabaab walaal shabaab ehelad ma lahan dhawaanna laguma aamino anigu waxa aan ka aaminsanahay shabaab muddo dheer baan la dirirahayay waana la diriri doonaa biidnillahi tacaala inta aan noolahay waxaan ogahay aniga qof kasta oo Soomaali ah oo mas'uul ah qofka loo soo dirahayo oo shabaabka oo dilahayo midka dadka ugu xiga inuu yahay ayada oo qabyaalada Soomaalida lagu fiirinayo qofkan inuu qof reebel yahay inaan la xireyno inaan la taabanin inaan kan la yeelin laakiin aniga shakhsiyan qalbigayga arrintaas waa Ilaahay uu ka sifeeyay mana ii suurta gasho qof shabaab inaan ehelad ku soo dhaweysto laakiin waxaan rabnay inaan maadaama nin gobolka ku dhex jiro sargaal oo ahaa inaan xorriyad yar siino inaan saraakiishanada iyo ama ciidankana inuu suudo inay daba socdaan inaan asaga ku shaqeyno macluumaad dheeraada ka helnaan raadinaynay laakiin guuldarrada intaasi ka weyni waxay tahay sida ay qirteen mas'uuliyiintu inay gobolka Gada ku sugan yihiin ugu yaraan 30 kale oo la mid ah Cabdinuur oo sheegay inay ka soo goosteen al-shabaab balse aan ku jirin gacanta maamulka gobolka iyo kan dawladda federaalka midna 13 bishii Febraayo ee sanadkii hore 2017 Isaaq Boorow Cali iyo xubin kale oo ka tirsanaa al-shabaab waxay isku soo dhiibeen wasiirka amniga maamul goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo soo dhaweyn u sameeyay una yeeray warbaahinta halkaasi oo ay sawirro iskaga qaadeen Isaaq Boorow Cali waxa kadibna loo dhaadhiciyay xarunta dhaqan celinta taasi oo ka qalin jabiyay sanadkan horaantiisii isagoo qaatay lacag dhan $1,500 oo la siiyo dadka ka qalin jabiya xarumahaasi toddobaadkii aynu soo dhaafnay Isaaq Boorow Cali waxa uu dilay askari ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed meel u dhaxaysa magaalooyinka Baydhabo iyo Awdiinle askari kalena dirqi ayuu uga baxsaday waxa uu qaatay labadii qori waxana uu dib ugu laabtay al-shabaab
maxamed cali abshir waxa uu ahaa ninka kale ay isku maalin soo goosteen isaaq boorow cali isku maalinna waxay ka qalin jebiyeen xarunta dhaqan celinta ee magaalada baydhabo isaaq boorow cali kolba gobolka bay ma dhaafsano waxaan u malaynayaa adii meelahaas ii sheegay meelahan shabaabku joogaan oo ka maamulo idaaliya ah qaarkaas inuu joogaan filaya hadda laakiin inuu baxayna xaqiiq weeye warkaas waa gartay markuu baxayay muxuu sameeyey markuu baxayay wuxuu sameeyey niman buu kaxisay markuu meel dhac la marayo waxaa ii sheeg nin buu qori ka qaatay ninka markuu ka qori ka qaatay ka kalena banaan buu u yar baxay markuu banaanka u yar baxay kii agtiisa joogay waa bad ku dhuftay kii adiga bad markuu ku dhuftay kii labaad ii sheeg asiga badda markuu maqlay oo yuu meesha kasii kacay markuu kasii kacay buu u habadeeyey saasuna ya maxaan ku rahday meeshuu dhacday marka imise qori buu qaatay 2 qori aa ka fadhisabina hal askarina wuu dilay hal askarina wuu dilay maxamed cali abshir waxa uu ii sheegay inuusan isagu ku tala jirin inuu al-shabaab dib ugu laabto waxaase uu yaqaanaa kuwo dhowr ah oo ka soo baxay xarunta dhaqan celinta baydhabo oo dib ugu laabtay al-shabaab waxaana ka mid ahaa ciise lowjabis oo qaatay lacagtii xarunta kadibna qori kala baxsaday mid ka mida ilaalada wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed 3 toddobaad ka horna dib ugu laabtay al-shabaab dabayaaqadii sanadkii aynu soo dhaafnayna 2 ka mida ragga ka soo qalin jabiyey xarunta dhaqan celinta ee baydhabo ayaa loo qabtay bam ay ku tuureen sarkaal ka tirsan booliiska magaalada raggaasi waxaa ka mid ahaa kuusow oo dagaalamay laguna dhaawacay weerarkaasi bishii juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay 2017 oo ku beegnayd bisha ramadaan rag hubaysan ayaa masaajid ku yaala magaalada baydhabo ku dhex toogtay wadaad caan ka ahaa magaalada oo lagu magacaabi jiray sheekh madeer madgaab cali 3daasi nin ee dilka lagu helay waxaa ka mid ahaa xasan cabdulaahi ibraahim qoorgaab oo soo maray xarunta dhaqan celinta ee baydhabo lacagtiisiina qaatay mas-uuliyiinta amnigu waxay ii sheegeen inuu si toosa ula shaqayn jiray al-shabaab xaruntaasina uu ka maqnaan jiray wakhtiyo badan isaga oo bixinayay cudurdaaro kala duwan xasan qoorgaab waxa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im wasaaradda amniga ee soomaaliya waxaa hoos yimaada 3 xarumood oo dhaqan celin ah kuwaasi oo ku kala yaala magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo kismaayo waxayna qayb ka yihiin barnaamijka lagu magacaabo mashruuca qaran ee maamulka dadka ka hadhay dagaalka waxayna madaxda xarumahaasi ku faanaan inay soo mareen 2,000 oo dad ah oo ka soo goostay ururka al-shabaab kuwaasi oo helay dhaqan celin iyo xirfado sida ay ku qoreen qoraalkooda rasmiga hase yeeshee dadka sida dhow ula socda xubnaha ka soo goosanaya al-shabaab waxay ii sheegeen in badan oo sheegta inay ka soo goostaan ay dhab ahaan la shaqeeyaan ururka al-shabaab marka ay hawshooda gutaanna ay dib ugu laabtaan mid ka mid a saraakiishii hore ee amniga ee la soo shaqeeya barnaamijkan dhaqan celinta waxa uu ii sheegay in 10% dadka soo goostaa ay dib u laabtaan mid ka mid a saraakiisha ka soo goosatay al-shabaabse waxa uu ii sheegay inay intaasi ka badan yihiin cumar maxamed abo ayaan waxa uu ka tirsanaan jiray saraakiisha dacwada ee ururka al-shabaab dadka oo ka soo goosanaya al-shabaab dhammaantood ma aha daacad waxay iskugu jiraan 2 kooxood koox oo dhab ee ka tahay iyo koox hadaf leh hadafkooda waxa u kala qaadaya inay tahay 2 ayay leeyihiin hadaf ayay ka leeyihiin markay soo goosanayaan mid waxay tahay dadkii soo goosta xaggaasi imaaday inay dib u tashkiiliyaan xerooyinka ay ku helaan ee dhahaan raggii aad u timaadeen waa naga soo tagteen meesha imaadeen calmaaliyad baa joogto diintana laguma dhaqmo dib usoo tashkiiliyaan markay dhibaatooyinka la kulmaan ee fursad ku helaan iyo dad meesha ku hela ammaan halkaasi markay ammaan ku helaanne oo la aqoonsado oo dawladda markaas u fasaxda magaalooyinka inay kala galaan kabacdina dhibaatooyinkooda meesha ay ka wataan si ay markii loo soo qabto loo dhaho xerisrintii ku jira ninkaani waa soo dhiibay loo dhaho kabacdina meeshaas dhibaatooyinkiisa uga sii wato ilaa laga qabto ama uu ka fashilmo oo dib ugu laabto marka inuu soo maray xarumaha dhaqan celinta ama xerisrindi waxay siinaysaa caddayn qofkii inuu meel kasta tegi karo meel kasta mari karo isagoo hawlihiina u fulinaya al-shabaab sax meel kasta inuu tegi karo meel kastana u mari karo howlihiina shabaab u fulinayo isla markaana dhibaateynayo dadka muslimiinta ahay isla markaana dhibaateynayo qofkii si run ah isku soo dhiibo oo markii la tashkiiliyey kabacdina madax adeegay kaasna waa beegsanayaan waxay beegsanayaan waa dawladda waxay kaloo beegsanayaan ninkii information ka haya ee kasoo tegey ee hadhowtii xerooyinkii iyo meelaha kasoo tegay dib inuu urufiyaan ay u diidayaan usoo jaajoos u diidayaan kuwaasna waa beegsanayaan marka hadafyada ay ka leeyihin waxay tahay inay dhibaateeyaan raggii sida dhabta isku soo dhiibay iyo ragga dawladda ah ayagoo haysta waraaqada ay jidadka ay ku mari karaan iyo aqoonsi hadhowti markii la qabto
haddii oo hub iyo gacan lagu qaban oo la dhaho war ninka waxa waa sii daya waragii soo dhiibay oo halkaasan uu ku helo ammaan buuxdo si oo wax hooliisa u fusho ilaa uu ka fashilmo. guuldarro kale oo hay-adaha amnigu ay sameeyeen ayaa ah in kuwa ay soo caddeeyeen maxkamaduhu inay ka tirsan yihiin al-shabaab loona soo xukumay dembiyo la xidhiira argagixiso islamarkaana soo dhammaysta xukunnadooda inaan loo gudbinin xarumaha dhaqancelinta. gaashaanle sare xasan cali nuur shuute waa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee militariga soomaaliya. usbuuc walba waxa uu maxkamadeeyaa xubno ka tirsan al-shabaab oo soo galay faldembiyeedyo kala duwan iyo kuwa la tuhunsan yahay. hase yeeshee xubin kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha laguma helo dembiga ay galeen. qofka lagu soo eedeeyo al-shabaab balse caddaymo ku filan loo waayo waxa uu amri jiray in la geeyo dhaqan celinta. waxaa kaloo dhaqan celinta uu u diri jiray qofka lagu helay dembi ah la shaqaynta al-shabaab balse aan lagu hayn karin xabsiyada dadka waaweyn da'diisa oo yar darteed. waxaa kale oo la geyn jiray dhaqan celinta dadka isa soo dhiibistooda ay qaldantay. tusaale ahaana dadka soo galay magaalada balse aan soo marin nidaamka isa soo dhiibista. taas beddelkeedana ku soo degay mas-uul ehel ama qof kale oo asxaab ah. hase yeeshee wakhti haatan laga joogo 2 sano xarumaha dhaqan celintu waxay sheegeen inaysan aqbali doonin ragga ka tirsan al-shabaab ama la tuhunsan yahay ee ka yimaada dhinaca maxkamadaha militariga. go'aanka lagu hor joogsaday in al-shabaabka dembiyada galay halkaasi lagu dhaqan celiyo waxa uu qayb ka yahay is-afgarad 23 bishii Febraayo sanadkii 2015 ay kala saxeexdeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Britain oo maalgelisa xarunta ugu weyn ee dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho ee lagu magacaabo Sarindi. waxaana heshiiskaasi wada saxeexday wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed iyo safiirkii hore ee Britain u joogay Soomaaliya Neil Wigan. heshiiskaasi kadib waxaa kaloo xarunta dhaqan celinta laga sii daayey xubnihii al-shabaab ee maxkamadaha soo maray. mid ka mid a dadka hore looga sii daaya xabsiyada dowladda ayaa toddobaad ka hor mar kale loo soo dacweeyey falal la xiriira al-shabaab waxaana mar kale la hor keenay gaashaanle sare xasan cali nuur shuute. imise qof oo xabsigooda dhammaystay oo shabaab u xirnaa ayaa markii la sii daayey kadib loo soo dacweeyey falal la xiriira shabaab? way badan yihiin dadka noocaas ah. xilligaasi markii oo waxaa lagu maqaalaa dadkii aan horta oo la geey jiray in hal maalin heshiiskii markii la saxiixday kadib hal maalin ila 64 qofooda ooda laga qaaday. taasaa kaliftay marka dadkii banaanka u baxay iyo dadkii xilliyada ka dambeeyay dhamaystay qaybtii oo ku naqatay shabaabka ama qaybtii oo looga shakiyay in dib loo soo dacweeyey. dad bil walbo amba 2 bil kasta dhowr qofooda la keenaa. hadda waxaa xiran ilaa 7 qofood oo 2 ka mid ah maxkamadooda ay socotay isbuucan oo loo haysto in ay shabaab dib ula midoobeen. ayaga laftigoodana markaa weydiiso ku dhahay dib aan ula midoobna qaarkood. kiisaska hore loo xirayna maxaa ka mid ahaa labadaa haddaad soo qaado toddobaadkan maxkamadooda kiisaska loo xiray waxay ahayd qofkaasi mid ka mid a 2016 dhammaadkeedii oo wuxuu dhammaystay xabsiga 5 sano xabsi ah u dhamaystay maxkamadda hore ugu heshay. markuu xabsigaas dhamaystay wuxuu ka mid ahaa dadkii laga dalbaday hay'adda dhaqan celinta Sarandi qaybta Sarandi in ay qabato ka mid ahaa. Sarandi heshiiskaas iyo xasan galnay dhaheen saasi ku suuragali weysay inay qabtaan. kadib saas oo banaanka uga baxay sababtoo ah qof xabsi maxkamadda dambi ku heshay oo la xukumay xabsigiisa dhamaystay qaab kaloo loo hayay oo qaab maxkamadda iyo xabsiga weyna ugu sii jiri kara malaha. dambigu galay maxay ahayd markaas? shabaab inuu ka tirsan yahay ahayd. haddana maxaa loo soo xiray? inuu argay shabaab ka tirsan yahay haddana loo soo xiray mar kale. weliba isaga laftigiisa ku dhahay markaan uu dib ugu laabtay. 30 bishii November 2014 Faysal Yuusuf Aadan oo ku magac dheeraa Awliyo iyo 3 kale oo soo dhamaystay xabsigooda ayaa maxkamadda militarigu ay qortay warqadii loogu wareejin lahaa inay galaan xarunta dhaqan celinta. balse wax yar kadib markii la saxeexay heshiiska Soomaaliya iyo Britain, Faysal Awliyo iyo 64 qof oo kale oo hore uga soo tirsanaan jiray al-shabaab waxaa laga sii daayey xarunta dhaqan celinta. gaashaanle sare xasan cali nuur shuute ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen. Faysal Yuusuf Aadan wuxuu ka mid ahaa dadkii asaga uu ka duwan yahay dadkaani oo xeelada dhaqan celinta ay marka hore dadkii ogoladu ka mid yahay. wuxuu ka mid ahaa dad la soo qabtay oo hay'adaha ammaanka ay soo qabteen ay garsoorka hor keeneen iyadoo lagu dacweynayo wuxuu ka tirsan yahay kaliya shabaab uu ka tirsan yahay. baaris kadib maxkamaddu waxay ogaatay inuu qofkaani ka tirsanaay shabaab kaliya in dambigaas in ay ku heshay wayna ku heshay. kadib waxaa lagu xukumay xabsi 3 sano ah lagu xukumay. xabsigiisaas wuu dhamaaday 2014 taqriiban xilligaas uu dhamaaday bishii 11aad. sida nidaamku waagaas ahay
maadaama uu xabsiga dhamaystay qofkaani dembigii intii la ekaay garsoorkuna uu saaray waxaa loo baahday in sarandi la geeyo maxkamaddu waxay amar ku bixisay in xerooyinka dhaqan celinta la geeyo marka xilligaasi 2014 maxkamaddu waxay geysay Faysal waxay geysay xerada dhaqan celinta sarandi hadda xamar ku taalo taasi muddo inta saas markuu ku maqnaay waxaa dib loo keenay maxkamadda Faysal 2016 iyadoo la dhahayo Faysal xerada sarandi oo ugu baxay si aanan sharci ahayn oo nidaam darro ah ugu baxay maxkamaddu mar labaad ay ku amartay xerada sarandi inay hayso lagu haayo meeshaasi Faysal intii oo lagu hubinayo afkaartiisii inay isbedeshay hay-adaha amniga ee Soomaaliya ayaa horaantii sanadkii 2016 waxay heleen sirdoon muujinaya in Faysal Awliyo uu weli xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab gaar ahaanna waxay ogaadeen macluumaad la xiriirinaya Maxamed Dulyadayn taliyihii Al-Shabaab ee mas'uulka ka ahaa weerarkii loo geystay jaamacadda Gaarisa 2 bishii Abriil sanadkii 2015 bishii Juun ee sanadkii 2016 waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanku ay dileen Dulyadayn muddo yar kadibna waxaa la qabtay Awliyo waxaana mar kale maxkamadaha militarigu ay amreen in la geeyo xarunta dhaqan celinta maadaama uu hore u soo dhamaystay xukunkiisii xubinnimo ee Al-Shabaab balse mar kale Faysal Awliyo waxa uu ka baxay xarunta bishii Janaayo 27keedii 2017 Faysal Awliyo waxa uu darawal ka ahaa mid ka mid ah labadii baabuur ee isku qarxiyay saldhigga ciidamada militariga Kenya ee u dhow Kulbiyow oo ay ku dhinteen 67 ka tirsan askarta dowladda Kenya weerarkaasi Al-Shabaab waxay sheegteen inuu ahaa mid loogu aargudayay Maxamed Dulyadayn wasiirkii hore amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo saxeexay heshiiska dawladdu ay la gashay Britain waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in culayska aynaan la aqbalin dadka laga soo daayo xabsiyada uu codsigaasi ka yimid dhinaca hay'adda fulinaysa mashruucaas laguna magacaabo Adams Smith International waa xasuustaa dhowr mar oo dad laga daayay hal mar kaliya ma aha dhowr mar soddon la daayay waa xasuustaa mar yacni 40 xoogaa la daayay waa xasuustaa 64 waa dhici kartaa in mar la daayay weliba qoradan Adam Smith International projectiga implement gareynaysay inay ayaga ay pressure ay wadeen waa dhici kartaa markaas oo pressurekooda muxuu ahaa pressurekooda wax kale ma aha waxay isku dayayeen ayaga iyo Ingiriiskaba inay yacni kostiga ay yareeyaan kostigana wuxuu yaraanaa marka dadka meesha ku jira ay yar yihiin marka pressure dhinacaas oo kale inuu jiray waa dhici kartaa laakiin maxaad heshiiska ugu qori weydeen halkan xarunta qayb kamida waa in la geeyaa dadka xabsiga soo dhamaysta sababtoo ah dadkaasi suuqa laguma sii dayn karo iyaga dee mandate-kooda oo fundingka ay ku bixinayeen kuma aysan jirin taas moogta yani boolashe ahaan dowladda Soomaaliya waa u fiicnaan lahayd haddii ay raadin lahayd another funder ama another donor ama partner kaleeto oo fangareynayo oo high riskiga marka dadka maxkamadaha marka dadka xabiska laga soo daayo oo kaleeto rehabilitation loogu sameynayo laakiin dee ma aysan jirin dee lamana raadinin markaas madaxda xarumaha dhaqan celinta ee xilligan shaqeeya waxay ku adkaysteen inay xarumahaasi fulinayaan waajibaadkii loo furay waxayna sheegeen suurtagalnimada in la furo weji labaad oo aqbala dambiilayaasha xukunka soo dhammaysta agaasimaha xarunta dhaqan celinta ee Sarindi ee hoos tagta wasaaradda amniga Cabdirashiid Ibraahim Maxamed waxa uu sheegay inay haatan xaruntu aqbalayso oo kaliya dadka sida mutadawacnimada ah xarunta ugu soo biira kullay annaga mashruuceena wuxuu yahay isu soo dhiibay qof waxaana loo keenaa volunteer oo diyaar waa inuu dokumenti saxiixo meesha waxbarashadiisii iyo farsamadii iyo joogitaankiisa raalli ka unbaa naloo keenaa qofkii naloo keeno na dhahaya aniga barnaamijkan raalli kama yihi inaan dib uga laabto ma arkin marka inta badanna dee hooshaas annaga ka hore dhacdaa marka hay-adaha amniga meelaha lasoo dhiyaa markii uu qofka yidhaahdo waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto barnaamijka dhaqaacinta kaasaa naloo keenaa ciddii naloo keena annaga markaas waxaan door u siinaa inaan u yidhaahdo diyaar ma utahay barnaamijka inaad ka faa'iidaysatid markaas ka bacdi barnaamijka waxbarashadiisii sida uu shaqeyna waxaas loo sharaxaa markuu aqbalo ka bacdi xeradu qayb ka noqdaa asagoo markaas waajibaadka iyo wixii la rabo fulinayo madaxda dowladda Soomaalidu waxay marar badan ku celceliyeen inay cafis u fidinayaan Al-Shabaab ayna ka doonayaan inay soo dhiibaan si wanaagsanna loola macaamili doono hase yeeshee sida ka muuqata xarumaha ugu horeeya ee dadkani la keenayo ma haystaan manhaj hufan oo dhaqan celin ah sidoo kale nidaamka ay ilaa haatan adeegsadeen waxa uu ku guuldaraystay inay barnaamijkii Al-Shabaab ka dejiyaan xubnaha qaarkood sida ka muuqata xubnaha dib ugu laabtay Al-Shabaab
sidoo kale waxaa muuqata inay xarumahani muhiimadda koowaad siinayaan tirada dadka soo mara iyo kuwa qalinjebinta samaynaya balse aan culays weyn la saarin wax ka beddelidda dhallinyarada iyo qiimaynta xaaladaha amni ee ku xeeran dadkaasi.